salaamullaahi calaykum akhyaarta nala socota meel kasta oo aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo tabin iyo taxliilin ku saabsan wararka gobolka bariga dhexe iyo diblomaasiyadda dunida waa 16 bisha May sanadka 2026 qodobada aan idinkugu haya barnaamijkana waxaa ka mid ah ciidamada Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa inay galeen diyaar garowgii ugu xoogganaa ee suuragalka ka dhigi karaya weerar cusub oo lagu qaadi karayo gudaha wadanka Iran. warbixin gaar ah uu qoray wargeyska The New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa si gaar ah ugu faaqidaya barnaamijka inagoo dhinacyo kala duwan ka fiiri doona. Mareykanka awood ma u leeyahay xilligan inuu galo dagaal daba dheeraada oo ka dhana dowladda Iran. dowladda Iran ayaa ka jawaabtay wararka soo baxaya diyaar garowga dagaalka ee ka dhanka wasiirka amuraha dibadda ayaa oranaya weerarka Mareykanka oo abaabulaya isaga ayaa naftiisa ku qaadaya ma jiraan wax ay dowladda Iran ka goyn karaan. haddaba warbixintaas qaraar kale ee wasiirka amuraha dibadda uu jeediyay dalka Iran maxay daaran tahay? dowladda Shiinaha waxay u muuqataa markan dhabarka inay ka toogatay Washington kadib markii ay ka hortimid qaraar marinka Hormuz ku saabsan uu soo jeediyay madaxweynaha dalka Mareykanka. arrintan ayaa u muuqanaysa dowladda Iran mar kale inay helayso garab dhinaca Shiinaha waxaana muuqanaya dhinacyadu wali inay is-aamin laayeen. dhinaca isu tagga Imaaraadka Carabtana waxay si dadban u qirteen weerarkii bishii April ay ku qaadeen gudaha wadanka Iran. war ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda wadankaasi ayaa si dadban looga jawaabay warbixintii wargeyska The Wall Street Journal uu soo bandhigay ee ku saabsanayd macluumaadkii iyo weerarkii ay ka fuliyeen gudaha wadanka Iran. haddaba gobolka bariga dhexe haddii uu markan dagaal aado waayo cidda guulaysanaysa Trumpna ma la dhihi karaa waxa wajahaya mid ka mid ah wajigabaxyadii ugu xoogganaa ee dunida soo mara. soo dhawaada khiyaarta ay nala socota ay tabintan iyo taxliilintan gaarka ayaan ku eegayaa barnaamijkan iyo macluumaad kale oo ku saabsan wararkii ugu dambeeyay gobolka ee ku soo biiray YouTube-ka oo subscribe saara waa mahadsantiin. ayaa lagu soo waramayaa gobolka bariga dhexe inuu ku soo fool leeyahay iyadoo warar soo baxaya ay tilmaamayaan in ciidamada wadankaasi Mareykanku ay galeen heegankii ugu xoogganaa iyadoo la sugayo amar ka soo baxaya madaxweynaha wadankaasi Donald Trump. wararka qaar waxa ay tilmaamayaan in marka la eego heeganka madaxweynaha ciidankiisa uu galiyay ay u egtahay in Trump uu doortay khiyaarkii military oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka fikirayeen guddiga amniga qaranka ee aqalka cad ka howlgala. war ka soo baxay wargeyska Mareykanka ee The New York Times ayaa sheegay in Mareykanka iyo Israel ay wadaan diyaar garow ciidan oo aad u xooggan iyadoo laga cabsi qabo in dagaal cusub oo ka dhana Iran uu dib uga bilowdo toddobaadka soo socda kadib markii wada hadalka diblomaasiyadda labada dhinac ay la sheegay inuu iminka fashil ku dhow yahay. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sheegay in markii uu ka soo laabtay safarkii Shiinaha isagoo wajahaya go'aan adag oo ku saabsan in dib loo bilaabo duqeymaha cirka iyo militariga ee dalka Iran lagu qaadi doono. Trump waxa uu hoosta ka xariiqay in dalabka ugu dambeeyay ee Iran aanu aqbali karin isagoo yiri haddii ay jeclaan lahaayeen in weerar jumlo ah ay la kulmaan ciidamadeenu waxa ay diyaar u yihiin in ay qaadaan tillaabooyin xoog leh. waxa uu mar kale ku hanjabay in laga yaabo doorashada hortaalla ee dagaalka inay noqonayso tan ugu dambaysa ee Trump uu miiska saari doono. haddana waxaa muuqanaya in ciidamada wadanka Mareykanka ay ku jiraan heegankii ugu xoogganaa. wasiirka wasaaradda dagaalka ee dalkaasi Pete Hegseth ayaa Congress-ka u sheegay in ciidanka Mareykanku ay hayaan qorshe diyaar u ah kor u qaadista dagaalada haddii loo baahdo. waxa kale uu sheegay in howlgalka military oo hore loo hakiyay dib loo bilaabi karayo maalmo gudahood. waxa uu sidoo kale tilmaamay in qorshayaasha la tixgelinayo waxa ka mid ah duqeymaha cirka iyo kuwa oo ka xoog badan kuwii hore laguna beegsanayo xarumaha ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga iyo waliba kaabayaasha militariga ee wadankaasi. suurtagalnimo ciidamo gaarka ah oo loo dirayo gudaha Iran si ay gacanta ugu soo dhigaan walxaha nuclear-ka oo dhulka hoostiisa ku jira gaar ahaan xarunta aadka u ballaaran ee Isfahan sida ay ku waramayaan
warbaahinta Mareykanka oo xiganaya hadalka ka soo baxay wasiirka Pete Hegseth. dhinaca kale Iran ayaa sheegtay inay diyaar u tahay jawaab adag. gudoomiyaha baarlamaanka Iran Mohammad Baqir Ghalibaf ayaa sheegay in ciidamada ay diyaar u yihiin jawaab ku habboon dunidana ay la yaabi doonto haddii dowladda Iran ay isku dayo in weerar lagu soo qaado. warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in sirdoonka Mareykanku ay aaminsan yihiin in Iran ay dib u howlgelisay 30 ka mid ah 33 goobood oo gantaalaha laga tuuro oo ku teesan marinka Hormuz, taas oo qatar cusub ku ah maraakiibta shidaalka iyo kuwa ganacsiga caalamiga ah ee ka tallaabaya aagaasi. gudaha Israa'iil ayaa sidoo kale waxaa xoogeysanaya in la aaminsan yahay in wada hadalka Mareykanka iyo Iran ay burburayaan, iyadoo falanqeeyaashu ay tilmaamayaan suurtagalnimada weerar lagu qaadi karayo xarumaha tamarta, warshadaha muhiimka ah, goobaha la xiriira barnaamijka nuclearka iyo nidaamka gantaalaha wadanka Iran. dagaalka ayaa dowladda Iran waxay ku doonaysaa in lagu burburiyo guud ahaanba tamarta iyo waliba kaabayaasha dhaqaalaha ee wadanka Jamhuuriyadda Islaamiga Iran. iyadoo Mareykanku wararkaasi digniinta ay ka soo baxayaan oo ay suuragal tahay in saacadaha soo socda Trump uu qaadan karo go'aano amraya ciidamadiisa inay duqeymo ka fuliyaan gudaha wadanka Iran. haddana wasiirka muraha dibadda wadankaasi Iran ahna diblomaasiga muray Dr. Abbas Araghchi ayaa waxa uu tilmaamay tallaabo kasta oo Mareykanku qaado inuu yahay mid uu naftiisa dab ku shidayo. waxa uu yiri dagaalka Iran lagu hayo waxa ka daran inta Trump uu shacabkiisa dhibaatooyin ku hayo. wasiirka wasaaradda qaarijiga ah ee wadanka Iran Abbas Araghchi ayaa sheegay in dagaalka Mareykanka iyo xulufadiisa ay kula jiraan Iran uu keenayo buu yiri khasaare dhaqaale oo sii kordhaya, taas oo ugu dambeyntii culays saaraysa shacabka Mareykanka. qoraal uu ku soo daabacay barta X ayuu Araghchi ku sheegay in dadka Mareykanka lagu qasbayo inay bixiyaan qiimaha dagaalka uu kala kulmayo mid ikhtiyaari ah oo ka dhana wadanka Iran. waxa uu sheegay in dhibaatada ugu weyn ee shacabka Mareykanka ay soo muuqan doonto marka uu kordhaba deynta dowladda Mareykanka iyo dulsaarka arrimaha gudaha ee ka imanaya, taas oo saameyn toos ah ku yeelanaysa dhaqaalaha qofka caadiga ah ee Mareykanka. sidaa daraadeed shacabka wadankaasi loo baahan yahay in ay ka fiiro dheeraadaan hogaamiyahooda uu ku tilmaamay mid qariska tuura. Araghchi ayaa sidoo kale tilmaamay kororka laga dareemayo faa'iidada la dul saaray amaahda dowladda Mareykanka ee waaxda amuraha maaliyadda ee dalkaasi, isagoo soo bandhigay jaantus muujinaya sare u kaca ku yimid arrintaasi. warar hore uga soo baxay warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaya in qarashka weerarada Mareykanka ee ka dhanka ah Iran uu gaaray iminka ku dhawaad $50 bilyan oo dollarka Mareykanka, inkastoo wasaaradda difaaca ee dalkaasi ay hore u sheegtay in uu gaarayo ugu yaraan $25 bilyan. hase haatee markii ugu dambeysay Congress-ka waxaa loo gudbiyay in $29 bilyan oo dollarka Mareykanka uu gaaray. dhinaca kale Mareykanka ayaa 13 Abriil xayiraad ku soo rogay dekedaha Mareykanka oo ay ku jiraan kuwa ku yaala marinbiyoodka Hormuz, waxaana laga baqnay qabaa dhibaatooyinka dagaalka in ay kor u sii kacaan. Israa'iil ayaa Mareykanka ku qalqaalinaysa dagaalka in la bilaabo ilaa inta Iran aanay gacanta ku dhigin qunbuliyad nuclear ah oo qatar ku noqon karaysa jiritaanka nidaamkaasi gacan ku samayska ee gobolka Bariga Dhexe. dowladda Shiinaha ayaa dhabarka ka toogatay Mareykanka kadib markii ay diiday qaraar arrinta Hormuz ku saabsan oo soo bandhigay wadankaasi Mareykanka, isla markaana ka mid ahaa damaca madaxweynaha dalkaasi ee Donald Trump. Washington ayaa iminka u arkaysa wajigabax uga yimid Shiinaha iyo ballanfur degdega wixii ka dambeeyay markii Trump uu booqday Beijing maalmo ka hor.
dowladda Shiinaha ayaa si kulul u dhalishay mashruuc qaraara oo ay soo jeediyeen Mareykanka iyo Bahrain oo la xiriira xiisada ka taagan marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz. safiirka Shiinaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay in nuxurka qaraarka iyo waqtiga la keenayba aanu ku habboonayn xaaladda hadda ka taagan marinkaasi Bershiya, isagoo xusay in maalmarinta qaraarkan aysan wax faa'iido ah u keeni doonin xilligan. qaraarka Mareykanka ayaa dalbanaya in Iiraan ay joojiso weerarada iyo sidoo kale in aysan minooyin ku beerin marinada istiraatiijiga ah ee maraakiibtu isticmaalaan ee Hormuz. diblomaasiyiinta ayaa sidoo kale saadaaliyay in Shiinaha iyo Ruushka ay adeegsan karaan baalayri awoodda diidmada qayaxan ee veto haddii qaraarka loo gudbiyo cod aqlabiyad leh oo golaha amniga ee Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa la horgeeyo. labada dal ayaa bishii hore sidoo kale diiday qaraar la mid ah Mareykanka midka uu watay, iyagoo ku tilmaamay mid dhinac u janjeera oo ka dhana dowladda Iiraan. safiirka u fadhiya dowladda Shiinaha qaramada midoobay ayaa sheegay in hadda aad loogu baahan yahay in labada dhinac la dhiirigeliyo wada hadallada dhabta ah iyo gorgortanka daacadda ah ee xal u helidda siyaasadda in lagu gaaro. waxaana intaasi uu ku daray in haddii Shiinaha go'aankaasi uu ka hor yimaado ay noqon doonto mid si weyn wajigabax ugu noqonaya dowladda Mareykanka. hadalkan ayaa yimid kadib markii kulan 2 maalmood socday oo magaalada Beijing ku dhaxmaray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha wadanka Shiinaha Xi Jinping. aqalka cad ayaa sheegay in labada dhinac ay isku raaceen muhiimadda ay leedahay marinbiyoodka muhiimka in la furo, hase haatee durbaba waxaa muuqanaya Mareykanka in lagu ballan furay oo dowladda Shiinaha ay si weyn uga hortimi. ugu dambeyntiina dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa u muuqanaysa inay si dadban uga jawaabtay isla markaana ay u ogolaatay weerarada la sheegay inay ku qaadeen bishii April gudaha wadanka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. inkasta oo warkan markii uu soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee Isutaga Imaaraadku ay diiday, haddana waxaa mar kale wasaaraddu ay sheegtay in qorshaha la boonbooniyo uu ahaa mid ku dhisnaa isdifaac qaran. wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in dhammaan tallaabooyinka ay dowladdu qaaday ay yihiin kuwa difaac ah looguna talagalay ilaalinta madaxbanaanida qaranka, shacabka rayidka iyo waliba kaabayaasha muhiimka ee wadankaasi. bayaan ay soo saartay wasaaradda Sabtidan ayaa lagu yiri tallaabooyinka Imaaraadku ay ku jireen baalayri qaab dhismeedka difaaca amniga qaranka iyo ilaalinta hantida wadankaasi uu leeyahay ee muhiimka. bayaanka ayaa si toos ah u muuqanaya inuu uga jawaabayo warbixinta uu daabacay wargeyska Mareykanka ka soo baxay The Wall Street Journal, kaasoo lagu sheegay in Imaaraadku uu fuliyay howlgal military oo ka dhana Iiraan horaantii bishii April, isagoo soo xiganaya ila aan la magacaabin oo aan banaanka la keenin. wasaaradda amuraha dibadda ee Imaaraadka ayaa sidoo kale xaqiijisay ama beenisay baalayri faahfaahinta warbixintaasi. xiisadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Israa'iil ee ka dhanka dalka Iiraan uu socday tan iyo 28 Febraayo, kaasoo hadda ka gudbay in madaafiic iyo waliba sawaariq la isku adeegsado isla markaana la gaarsiiyo labada dhinac in ay dhaqaalaha ku dagaalamaan. dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa la tilmaamay wadamadaas inay noqdeen kuwa dagaalka ka qayb galay oo si aad ciidamadooda cirku ay u duqeeyeen xarumo istiraatiiji ah oo ku yaala gudaha wadanka Iiraan. saatee labada dhinacba waa ay beeniyeen, waxana soo baxaya arintaasi inay hadda xaqiiqada u sii dhawaanayso. sidoo kale arintan waxa ay ka dhigaysaa jiritaankeeda in dowladda Iiraan ay weerareen 4 wadan oo isugu tagay, ugu dambeyntiina ay u muuqatay inay wax ka qaadi waayeen. ikhtiyaarta ay nala socota ay soo dhawaada meel kasta oo dunida ka joogtaan. faahfaahinta wararka diblomaasiyadda iyo lafagurka caalamka qaybtan intaas ayaan ku hakanayaa si aad macluumaad iyo warar dheeraad ah u heshaan ku soo biira YouTube.